aynu ka horeyne waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo magaalada muqdisho ka samaystay isbahaysi xoogan oo ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya. afar ka mid ah saraakiisha ciidanka Soomaaliya isla markaana sabtidii min laba qof uu hogaaminayay dagaal ka dhacay degmada Kaaraan ayaa isugu tagay saacadihii dambe ee isla habeenkii sabtida iyo shalayba duleedka magaalada Muqdisho. afartan sarkaal ayaa kala ah Cusmaan Xaadoole, Maxamuud Axmed Masdile, Abu Karbono iyo Maxamed Cusmaan Joore. saraakiishan oo ay baadi goobayso dowladda Soomaaliya ayaa isku biiriyay ciidankooda dagaalamay si ay isaga difaacaan ciidanka damacsan in ay soo qabtaan saraakiishan ciidankaas oo ay soo dirtay dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa habeen hore ciidankeeda gaarka ah u dirtay soo qabashada saraakiishan, waxaana la sheegay in markii ay heleen xogtaas in ay isku biireen saraakiishan ciidankoodii ay dib u ka soo laabteen ciidankaasi iyagoo ka baqay in dagaal culus halkaasi uu ka dhaco. xaafadaha degmooyinka dhaca waqooyiga Muqdisho ayaa shalay ilaa xalay laga dareemayay jawi culaad iyadoona dhaqdhaqaaq ay bilaabeen saraakiisha ku dhawaaqay isbahaysiga ka dhanka ah ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo doonaya in saraakiishaasi ay soo xiraan. kasoo saraakiishan waxaa jirta cabsi ah in haddii dowladda aysan ka tanaasulin arrinta ay u horseedi karto in ciidan kale iyo shacabku qabiila dadkan ay dagaalka ku soo biiraan. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca laamaha ammaanka oo ay ku cadeynayaan inay uga baaqsadeen guud ahaanba dhaqdhaqaaqii ay ku soo qabanayeen saraakiishan ciidankooda ay isdagaaleen, laakiin dowladdu waa ay ka gaabsatay arrintan. shir madaxeedka 38 ee urur goboleedka IGAD oo aan caadi ahayn ayaa xalay waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti caasimada dalka Djibouti iyadoo xal looga gaaray arrimihii ugu adkaa ee shirkaasi looga dooday. madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhexdhexaadiyay oo kulan iskugu keenay madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Kenya Uhuru Kenyatta, waxaana ay ku guuleysteen inay ku qanciyaan labada dal soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo sidoo kale in xaaladda la qaboojiyo lana joojiyo hadallada colaadeed ee ay warbaahinta isku marinayaan labada dowladood. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta badan culays ku saarnaa maadaama ay Soomaaliya iyadoo xiriirka u jartay Kenya isla markaasina dacwad u gudbisay urur goboleedka IGAD, waxaana la soo sheegayaa in heshiiska ay Soomaaliya iyo Kenya dhex dhigaan madaxda Djibouti iyo Itoobiya la shaacin doono marka madaxda Soomaaliya iyo Kenya ay ku noqdaan dalalkooda. madaxda dalalka IGAD ee shirka ka qayb galay ayaa waxa ay ku laaban doonaan dalalkooda maanta iyadoo markaasina la shaacin doono heshiiska Soomaaliya iyo Kenya. madaxda urur goboleedka IGAD ayaa dhinaca kala taageeray howlgalkii ay Itoobiya ku qaaday gobolka Tigreega, waxaana guddi loo saaray xalinta khilaafaadka xuduudka Itoobiya iyo sidoo kale Suudaan. qodobada hordhaca ah ee la helay isla markaasina ay ku heshiiyaan Kenya iyo Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda waxay yihiin afartan qodob. qodobka koobaad wuxuu yahay in Kenya ay dhowrto madax banaanida dhuleed, joojisana nooc kasta oo faragelin oo ay hadda ku hayso gudaha Soomaaliya amaba ku jira dacwadda labada dal. labo in la soo celiyay xiriirka labada dal lana hagaajiyo iyadoo la marayo dariiqyada diblomaasiyadda. saddex in wadajir looga wada shaqeeyo la dagaalanka argagixisada iyo iskaashiga amniga ee guud. afar guddi gaar ah ayaa kormeeri doona hirgelinta qodobada laga soo saaray heshiiska fulintooda. wixii war ay ku soo kordhana wararkana dambe ayaan ku soo qaadi doonaa insha Allah. Suudaan iyo Itoobiya haddii aan eegnana Suudaan ayaa lagu warramayaa in ay xoojisay ciidankeeda militariga ah oo ciidamo kale oo dheeraad ah u dirtay dhanka xuduudda Itoobiya ay la wadaagto, waxaana sidaas sheegtay warbaahinta dowladda. maalmo kadibna ciidamada ammaanka ee dowladda ayaa halkaas la sheegay in ay ku sii sugnaayeen oo ay weerar ay kala kulmeen ciidanka dowladda Itoobiya. askarta ayaa waxa lagu daadguriyay xuduudda dhanka bari ee magaalada lagu magacaabo Al-Fashaqa, halkaas oo ay goobta isku dhacyada inta badan ay ku dhexmareen ciidamada Itoobiya iyo kuwa kale Suudaan, isla markaana dhul ay sheegato Suudaan balse beeraley Itoobiyaan ay ku sugan yihiin halkaas ay tahay goobta lagu dagaalamayo. goobtan ayaa sidoo kale xuduud la leh gobolka Tigray oo dhawaan ay ka dhaceen dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kuwa TPLF. ciidamada dowladda Suudaan ayaa ku sii siqaya jiidda hore ee Al-Fashaqa si ay dib ugu qabsadaan dhulka laga xaday, isla markaana fariisimo ay uga dhigtaan qadadka caalamiga. sidaasi waxaa lagu yiri qoraal lagu daabacay wakaalada wararka ee dowladda Suudaan ee Suna loo soo gaabiyo. ciidamada dowladda Suudaan ayaa sheegay in askartooda ay habeenkii Talaadada ahayd ay soo weerareen ciidamada iyo maleeshiya Itoobiyaan oo ku sugan gudaha dalka Suudaan, gaar ahaana deegaanada iminka iyaga ay sheeganayaan. warbaahinta Suudaanna waxay sheegaysaa in 4 ka mid ah askarta dowladdaasi lagu dilay isla markaana 27 kale lagu dhaawacay weerarka, inkastoo ciidamada aysan xaqiijin warbixinadaani. ra'iisul wasaaraha dowladda Suudaan Cabdalle Xamduug ayaa toddobaadkii hore tagay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalkaasi Itoobiya, waxaana dhigiisa Itoobiya Abiy Ahmed uu kala hadlay calaamadeynta xuduudda labada dowladood u dhaxaysa. Addis Ababa ayaa waxa ay isku dayday in ay yareyso ahmiyadda ay isku dhacaani, waxaana ay sheegtay in dhacdadaani halis ay ku tahay xiriirka labada dowladood u dhaxeeya. kulankii shalay ka dhacay magaalada Djibouti caasimada dalka Djibouti ee urur goboleedka IGADna waxaa la sheegay in diiradda lagu saaray sidii xal looga gaari lahaa xiisadda ka taagan xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo sidoo kale